kaalinta sideedaad waxaa ku jira filimka Dirty Harry. Filimkan waa filim American action ah. Filimkan waxaa director ka ahaa Don Siegel. waxaa soo saare ka ahaa isla Don Siegel iyo Robert Daly. sheekada filimkan waxaa qoray Harry Julian. waxaa jilyaal ka ahaa filimkan Salim Eastwood, Andy Robinson, Harry Gardino iyo Rini Santoni. waxaa la soo saaray filimkan 23 Diseembar 1971. waxa uu soconayaa filimkan 1 saac iyo 2 minit. waxaa lagu qarash galiyay filimkan hanti dhan $4 milyan ah. box office-ka wuxuu soo saaray hanti dhan $36 milyan ah. sidaana wuxuu ku noqday filimkani filimada ugu agshinka macaanaa abid ee laga soo saaro shirkadda filmaanta Hollywood-ka. kaalinta toddobaad waxaa ku jira filimka Mad Max Fury Road. filimkan oo leh taatika aad u macaan wuxuu iskugu jiraa akshinno iyo cabsi. filimkan waxaa director ka ahaa George Miller. waxaa soo saare ka ahaa Doug Marshall. waxaa jilyaal ka ahaa Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Rosie Huntington iyo Abby Lee. filimkani waxaa la soo saaray 14 May 2015 Australia. filimkan waxa uu soconayaa 1 saac iyo 20 minit. filimkan waxaa lagu qarash galiyay hanti dhan $150 milyan ah. waxaa box office-ka uu soo saaray hanti dhan $378.9 milyan ah. sidaana wuxuu ku noqday filimada ugu akshinka macaan Hollywood-ka. waa codkii iyo soo jeedintii Ducaale Daacad. waa farsamadii iyo habayntii Cabdishakuur Ali. sidaa iyo la socosho habboon.